garab ka mid ah xisbiga mucaaradka ee UCID oo maanta kulan ku yeeshay hotel ku yaala Hargeysa ayaa waxay ka soo horjeesteen musharaxiinta maanta ay ku dhawaaqeen labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee ugu tartami doona shirgudoonka aqalka golaha wakiilada Soomaaliland. garabkaasi waxa horseedka xildhibaan Cabdinaasir Qodax oo hore u shaaciyay in uu tartamayo jagada gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada. go'aankan ay soo saareen ayaan diidanahay. waxaanu nahay hogaankii xisbigaanu ka tirsanayn. waxaa ka mid ah Qodax baa ka mid ah, aniga ka mid ah, jiir baa ka mid ah. anaga Qodax baa noo musharaxaha ama aan soo baxnay inaan soo bixinay. haddaan soo baxna de waa isagu baan oday lahaa. haddii aan soo bixinay isagu baan anigoo ku hadlaya magacayga iyo kii xisbigan ahaa ayaan taageero u ahay. kuwa soo baxayna ragaanu tacab badan ku leenahay baa jira. marka taladiisii adeer de waxbaan ku leenahay in la yiraahdo waxba kuma leedin nin kaliya iska toocsanay de yeelimayno. xisbigan ka tirsanahay hadduu maalinba mid biraynayo aniga shalayba horeey gowracayo inakaygii deegaankuygii suurta gali waay. maantana Qodax baan kugu horbilaynaya yeelimayno iyo waxyaabo la mid ah. heshiis iskaashi ah oo ay yeesheen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye iyo xildhibaano ka mid ah xisbiga mucaaradka ah ee UCID iyo mas'uuliyiin kale oo isla xisbigaasi ka tirsan ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa waxaana ay ku heshiiyeen in shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland loo cimaamado Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo gudoomiyaha kana soo baxay xisbiga kulmiye iyo Siciid Faarax Mire Giire iyo Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax oo iyaguna ka soo baxay xisbiga UCID in loo kala sharaxo gudoomiye ku xigeenada koobaad iyo labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland. annagoo ah garab xisbiga UCID oo wato xildhibaanadiisii iyo kaadiriintii ama hogaankii xisbiga waxaanu isku aragti ka noqonnay xisbiga kulmiye sida uu noqonayo shirgudoonka golaha wakiilada cusub. waxaan halkan u nimid arrinta shirgudoonka oo aan isku afkaro weynay xisbi ahaan oo aan annagu wadano Siciid Mire Faarax Giire oo wadano gudoomiye ku xigeenka koowaad musharax gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada iyo Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax oo aan wadano gudoomiye ku xigeenka labaad. halkan waxaa fadhiya Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo 17 sanadood xisbiga UCID ahaa aan oran karo waa astaantii xisbiga. waxaan horta idin sheegaynaan ku cadeynayna horta garab manihi laakiin aqlabiyadii xisbigan xisbiga in badan baan ka shaqeynay waana ka sii shaqeyn doonaa laakiin inteedaas maanta waxaan isku aragti ka nahay waanu ku mideysanahay waa shirgudoonka golaha wakiilada haddii Ilaahay nafta naga soo xilkii iyo xubnimadii xisbiga UCID baa laga saaray haddana waxay sidataa calankii xisbiga UCID muxuu yahay qorshaha adeer waxa weeyaan horta xisbiga idin kaama saari karto sharci baa ka soo baxay waad ogtay mid baa baarlamaanka iyo bahalkuba way guurtiduba way soo saareen waana akhriday baan u maleynaa marka la iga saarayo maxkamadaanu isla tagaynaa haddii la igu helo dambigaana waa la iga saari karaa haddaan la igu helina la igama saari karo laakiin anagu garab baanu nidhay maan ku doodinta anagu kumaan odhan gudoomiyeba imika wuu naga maqay 9 xildhibaan ee naga maqan waanu ka badnayn markuu oreyntan qaar baa gabanaya iyagana waxaan rajaynaynaa in Ilaahay talada waafajiyo si weyn baanu u tashanay dalka yaa hogaamin karaanu nidhi Faratoon ayaanu isku raacnay labada shirgudoo aan ku xigeenada qaadano oo niman aad iyo aad u wanaagsana labadiina waa noo ogolaaday. xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiis dhexmaray xubno ka tirsan xisbigaasi iyo xisbiga talada dalka ee kulmiye in xisbiga UCID uu jawaabayo qolaha ku qabatay hotelka Mansoor ee yidhi waxaan nahay xisbiga UCID garab ka mid ah oo ku kulmiye la galay heshiis aan jirin markuu madaxweynuhu isticmaalay qabyaalad oo uu reerkoodii ku qasbay xubnihii ka soo baxay UCID inay kulmiye u codeeyaan inay xaq u lahayn inay heshiis la galaan xisbi kale sida xeerka xisbigu dhigayo qodobkiisa 22aad farqadiisa 4aad 5aad oo dhigaya wixii heshiis ah ee xisbigu la gelayo xisbi kale uu awood u leeyahay inuu saxeexo gudoomiyaha xisbigu.
geesta kalena waxaa isna dhankiisa ka hadlay xildhibaan cabdinaasir qodax oo ka mid ah mas'uuliyiintii xisbiga ucid ee heshiiska la galay xisbiga kulmiye aniga xisbiga ucid January 4teedii 2012 ayaa aniga iyo gudoomiyaha xisbiga isku maalin la wada doortay shirweynaana laga doortay shirweynaana laga qaadi karaa heshiiskaasi waa heshiis aan magaranaysa sharci ahayn waxa geli kara oo heshiis oo xusbiga u geli kara madaxda xusbiga ayaa u geli karta special gudoomiyaha ayaa u geli kara marka awood ku galaan ma leh waxa ay waliba khatar gelinayaan xildhibaanimadooda oo sharcigu wuxuu sheegayaa xildhibaankii jabiya shuruucda lagu soo doortay mid ka mid ah inuu kursiga banaynayo xusbigana uu tasdiiq ku sameeyo musharax kasta waxaanu ka saxeexnay qodobkaas oo ka saxeexnay marka heshiiskaasi wax heshiis oo jiriya maaha waa heshiis null and void ah xusbiguna wuxuu go'aansaday inuu xusbiga kale mucaaridka ah si 2005 ay shir gudoonka qaybsadaan awood uma leh inuu xildhibaan uu isagu yiraaha xusbiga la heshiinaya awood u taala maaha kow wax xilno haya waxa jira ku xigeenka qodax isaga maanta waanu ka qaadnay markii waati guddo fulintu fariisataan ka qaadnay laba waxaanu sameeynaa markii officially ka footeeyaan xusbiga go'aankiisa ay u footeeyaan musharaxa xusbiga kulmiye u footeeyaan markaasaan talaabadii labaadna ka qaadnaa sidii ay kursigooda aanu uga qaadlahayn meesha oo kuwii sugayay ay soo galaan hadda